aqriyaa dabeecadihiisa oo dhan waxa iska bedelay waxa ugu horeeya wax akhlaaq xumo la dhaho ma soo dhaxgelayaan maxaa yeelay wuxuu og yahay oo buugtaas uu ku dhax arkay uu dhaxgala qofka Soomaaliya buugu aqrinay tusaalahan novel aqrinaysa novelkaas mar walba waxa taageeraysa dadka wanaagsan ay ku jirto maaha kiibilenka aha mar walba cadow ku tahaadi adaa iska soo qaadayna meesha dhex joogtid mar walba xaalad gaashanta qofkii qaladka sameeyay buugta waxay ku tusinayaan maxaa qaldan oo ka dhex jira mujtamacaas waxa kugu adkaanaya adoo socda in qof kale mashaacirtiisa aad dhaawacdo qof aad aqoonin birina laga yaabo inaad arki doonin sidaas darteed waxa loo dhahaa qofka aad la hadlayso waxa ku hadashaa hadii daqiiqad kadib lagu dhaho qofka uu dhintay in damiirkaagu uu war fiican ina u sheegtay ina xasuusanaan kartid so Japan tusaalahan soo qaadana Japan ilmaha waxbarashadooda hadii waxa la baraa wadan kaliya lagu dhigo akhlaaqda yani waxay leeyihiin system dhan oo raac cunugaas Japan waxay sameeyaan ilmaha ayaga hawsha iskuulka qabta ayaga tirtiraayo alaabta ay ku quraacdeen break ku qaateen ayaga soo dhaqaayo soo nidaaminaya meesh maxaa lagu baraa qofka inuu yahay yani qof isku filan inuu noqdo markaas Soomaaliya marka aad joogto waxa arkaysaa wiil weyn ama gabar weyn oo rabta in loo shaqeeyo hawsheedii in loo qabto hawshii guriga xitee loo ma dirsanin dharkii in loo dhaqay rabaan waxay rabaan yani in shay kasta ayaga loo sameeyo rabaan soo wiilasha naftirkooda hada fariintan gooni ugu socotaa sababtoo ah hawl badan gabdhaha lagu qabtaa wiilasha inay bartaan ina barato ina isku filnaato qasab maaha in hadhow guursanaysa abaaya guriga joogto hooyo guriga joogto waxa laga yaabaa intooda bari inay si joogin maxaa sameeynay nafta ma ka dhacaysa adoo raashin karsan nafta ma dhar wasaq ma iska wadanaysa wiliga waxa u baahan tahay ina barato samaha okay ilmahaas waxa la baraa inay isku filnaan karaan waxa kale oo meesha jirta ganaax waxa ah in qof banaanka xaqaya ku dhahdo shaqaalahaas yani aayasto waxay ka mid tahay waxyaabaha dambiga ah ganaaxa ugu horeeya waxa waa adaa shaqadiisa qabanayo lacagna waa laga rabaa soo yani wadan kasta oo hormar waxa ku ogaanaysa anaga dhaqankeena caadiga ah akhlaaqda islaamka ah in la ixtiraamo dadkii waaweyn kuwa yarna loo naxariisto kaas oo ay ku waxay qaateen anaga koodii qaldanaa ee meelna u soconin kaas aan loo soo xawilay